waxaan ku weydiino su-aalaan ku weydiiyo wari badan baa intaas waraysan horta war waa suu ganacsan yahay aad iyo aad qabiil ya oomateedku waa kuu furayaan umalaynaya war oomateedkuu furiyo nagama xidhmay dhegeyso oomateedkaasi labadeena midkeen bay nagama xidhmaya lagama xidhmaya horta dee ilaahay oomateedku waxuu ka mid yahay nimcooyinka ilaahay bixiyo biyo caafimaadka isaga taa haba diidine waxaad kalad ka warantaa qofku bini aadmigii waxyaalaha baahiyaadka aasaasigu u baahan yahay horta nabadda waa ka kowdiya aqoonta iyo waxbarashaduna de ku dar waa caynka dadku hadday nabad iyo biyo iyo aqoon isla helaan saddexdaas iyo caafimaad oo ay dabeedna waxbarashada iyo horumarkana ku tallaabsadaan oo ay dantooda gartaan de wax waliba oo islaagaansa absolute laakiin oo marka qaba waxaan isdhahdaa nimaa dowladnimada inal bislaanba kolley dad badan lama jiro aan bislaan ya keen walaalba qaar sheegtaa annaga bixina baashi waar yaa ciise jawaan oo cuntadaynu cunnay waxaa la socota cashuurta iibkee cashuurta iibku maxay ahayd cashuurta iibku waxa weeye waa waxaa la yidhahdaa cashuuraha g s t da oo g s t du maxay ahayd waxa weeye cashuur laga qaado iibka ay hodheeladu sameeyaan sida cuntada iyo hurdada iyo waxa lamida dee waa tallaabo habboon dalkeenu qaaday oo waayahay cashuuraha marka alaabooyinku dalka yimaadaan kastam kasta iyo dekada iyo meel walba waa lagu cashuuraay cashuurta soo siyaaday maxay tahay marka sidaad mooday maaha ee waa cashuur la yidhahdo g s t oo maxay ku waajibtay waxa ay ku waajibtay sida iibka adeegyada isgaarsiinta iyo korontada iyo iibka tigidhada gaadiidka iyo iibka telefishinadu ay sameeyaan iyo wixii la halmaalaa tacriifada g s t na haddaan kuu soo gaabiyo waa 5% keliya qiimeyn lagu sameeyey dee inaad dadka xuba yeeli maysee markaa waxa weeye anuu adeegan caasimadii baa ku arki jira dee laakiin maanta goboladiina wiima boorku waa kaa maanta wajaale ka taagan wajaale xutaa ka shaqeynayaa maanta gobolada kaleo dhanna wuu gaadhay markaa waxa weeye horta waa dee wax wanaagsan oo waa horumar xagga tallaabada sharciya loo qaaday aad iyo aadna dadkeenu waa ugu bisilin oo dadkeenu wajeliyin waxqabadka iyo horumarka waxa weeye cashuuraha g s t du waa waxa dunidu ku horumartay dayaxa lagu gaadhay haddii dadkeenu ay fahmaan ma garatay iminka qadada dhan ee aynu cunnay waxa laynagu soo qoray 580 waxaa la socotaa cashuurtii iibka oo ah 4525 waxa weeye wax qofka dhibaysana maaha dalkana horumar iyo waxqabad bay u noqonaysaa dee markaa waan haddii sidaa laisula fahmo dee horta waaba ugu mahad celinayna wax badanna maaha waxaa ku yidhi dee cashuuraha g s t dana waa bixinayna waa in aynu isku wacyigelinaynu bixinaa dee waa si waxqabadkeena dee laamiye iyadoo biriisha waynu aragnaa doona caafimaadka iyo waxbarashadii waxba lagaga qabto aad iyo aad